gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ma noqon karaan maamul ka madax bannaan Somaliland iyo Puntland oo labaduba sheegta inay ka tirsan yihiin goboladaasi. Muxuu yahay imtixaanka adag ee waqtigan hor yaalla waxgaradka goboladaas ka soo jeeda ee waqtigan isugu tagay Laascaanood? Ma sidoodii bay laba maamul la kala safan doonaan oo qoryaha isku qaadan doonaan? Ma go'aan midaysan bay qaadan doonaan oo aan farxad gelinayn Puntland iyo Somaliland? sidee wax noqon karaan maalmaha nagu soo aadan? su'aalahaas oo dhan waxaa kaga jawaabaya barnaamijkan. daawade like saar muuqaalkan una share gare asxaabtaada, followna soo dhig page-keena YouTube-keenana subscribe saaro si aad noola jaanqaado. muddo dheer waxaa taagnay dood la xiriirta inay maamul gooniya noqon karaan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn. waxaana doodaas waday siyaasiyiin iyo dad kale oo Muqdisho jooga kana soo jeeda goboladaas, kuwaas oo mar walba diidanaa Somaliland iyo Puntland. waxaana dooda dadkaas daciif ka dhigtay inaysan deegaankoodii geyn karin doodan, xitaa aysan tagi karin. waxaana waqti dheer gobolada Sool iyo Sanaag loo diidanaa inay tagaan siyaasiyiinta ka soo jeeda ee ku matala dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana ay xildhibaanadaas soo dhaafi waayeen magaalada Muqdisho, taasi oo naafo ka dhigtay fikirkoodii ahaa inay goboladaas noqdaan maamul ka madax bannaan Somaliland iyo Puntland. sidoo kale dadka ka faalooda siyaasadda Soomaaliya ayaa leh gobolada Sool iyo Sanaag way adag tahay inay noqdaan maamul gooniya iyagoo dhowr dhinac ka eegaya. marka koowaad, Somaliland iyo Puntland oo goboladan saameyn ku leh ma ogolaan doonto inay noqdaan maamul madax bannaan, waxaana uu maamul walba xoogga saarayaa sidii uu goboladaas uga talin lahaa, taasi oo culays ku ah dadka degan Sool iyo Sanaag. qodob kale ayaa ah in maamulada Puntland iyo Somaliland ay kala taabacsan yihiin siyaasiyiin matala gobolada Sool iyo Sanaag, kuwaas oo ku aragtiya maamulka ay la joogaan. waxaana uu qodobkan dilay rajo walba oo ay lahaayeen 10kii sano ee la soo dhaafay dadka deegaanadaas. waxaana ay taasi caqabad ku tahay dadka doonaya inay gobolada Sool iyo Sanaag u helaan maamul ka madax bannaan Puntland iyo Somaliland. dhinaca kalena waxaa jira dood kale oo dul taagan garaadada iyo waxgaradka gobolada Sool iyo Sanaag oo uu shirhadda uga socdo magaalada Laascaanood, kaasi oo si weyn isha loogu hayo lana eegayo waxa ka soo bixi doona. waxaana hor yaalla imtixaan adag goboladaas dadka ka soo jeeda, kaasi oo saameyn doona mustaqbalkooda fog iyo kan dhowba. waxaana la eegayaa sida ay xal ugu helaan aayahooda. sidoo kale waxa ayana la isweydiinayaa haddii ay waxgaradka Laascaanood asbuucan gaaraan go'aan ka madax bannaan Puntland iyo Somaliland, waxa laga filan karo Puntland iyo Somaliland. waxaana dhici kara ayaa la leeyahay in labada maamul uu dagaal uga furmo, kaasi oo aan xal u noqon doonin dadka degan gobolada Sool iyo Sanaag. sida waqti dheer la fahamsanaa, Puntland iyo Somaliland marna ma aqbali doonaan maamul kale oo ka madax bannaan inuu ka taliyo gobolada Sool iyo Sanaag. waxaana Puntland ay ku doodaysaa inay dadka deegaanadaas wax ka dhisteen Puntland ayna dhalasho wadaagaan, halka dhinaca Somaliland ay taalo aragti kale oo ah in dhulka Sool iyo Sanaag uu ka mid yahay Somaliland, una ka mid ahaa xadkii uu gumaystuhu raaciyay Somaliland. Somalilandna waqti dheer ayay ku doodaysay inay soo xiri doonto xadkeeda oo u dhow Garowe, taasi oo caqabada ku sii adkaynaysa dadka degan gobolada Sool iyo Sanaag oo aan u fududayn doonin inay helaan maamul ka madax bannaan labada maamul ee Puntland iyo Somaliland. daawada sidee u aragtaa? qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag fikirkaaga.